السلام عليكم saaxiibayaal maanta waxaan sharaxaynaa film horror iyo action iskugu jiro oo lagu magacaabo I am Hero. Fadlan like saar muuqaalkan, subscribe-na ka dhiga runsheeg si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. Daawasho wacan. Bilowga filmka waxaana la tusayaa sheekayaqaanka lagu magacaabo Hideo, kaasoo hiigsanaya inuu maalin noqdo qoraaga ugu wanaagsan ee buugga majaajilada. Balse waqtigan riyooyinkiisa uma hirgelin, shaqo aan mushaar badan lahayn wuu hayaa. Wuxuu la nool yahay saaxiibtiisa, midaasoo bilowday inay dhibsato kana welwelsho baryahan dambe, maadaama Hideo ku guuldareystay inuu helo shaqo kaafin karto. Maalin ay dood dheer dhex martay kadib, saaxiibtiisa ugu fiican waxay ka saartay hoygeeda. Isla xilligaasi waxaa laga soo tafinayay TV-ga war degdeg ah oo ku saabsan caabuqa ku faafay dhammaan magaalada. Dadka uu saameeyay ma qaninayaan bini'aadamka qura, sidoo kale xayawaanada ayaa u nugul. Dadkana waxaa lagula taliyay inay ku nagaadaan guryahooda. Hideo waxaa laga soo saaray gurigii, mana haysan meel uu aado. Sababtaas darteeda ayuu xafiiska aaday subaxii. Kadib habeenkii oo dhan uu banaanka ku soo qaatay. Kaliya 5 shaqaalaha goobta kamid ah ayaa kula sugan xafiiskiisa maanta. Habeenka xigo waxay joogayaan xafiiska kadib bandow lagu soo rogay magaalada. Isla waqtigaas wuxuu telefoon ka helayaa saaxiibtiisa. Waxay ka raali gelinaysaa waxa ay sameysay, waxayna ka codsanaysaa inuu aqalka ku soo noqdo. Subaxa xigay, Hideo wuxuu qorsheeyay inuu ku soo noqdo guriga, wuxuuna u soo qaaday quraac fudud guriga saaxiibtiisa. Albaabka garaacidiisa markuu ku daalo, iyadana ay furi diido, waxay ka dhigaysaa inuu isweydiiyo su'aalo badan. Ugu dambeyn, duleelka boostada ee iridda waraaqaha loogu rido ayuu isha saaray. Wuxuu arkay waxay ahaayeen waxaan la aamini karin. Wuxuu arkay saaxiibtiisa oo xaalad qasan oo argagax leh ku jirto. Waxay u soo gurguurinaysaa albaabka dhankiisa. Markay timid agtiisa, wajigeedu wuxuu ahaa mid doorsoomay gebi ahaantiisa oo argagax iyo cabsi badan laga dheehan karay. Isla markii albaabka furtay, inay Hideo weerarta ayay isku dayday. Kadib markuu si adag isku difaacay, Hideo wuxuu ku celiyay gudaha guriga, laakiin hadda waxay awood u leedahay inay lugaheeda ku celiso albaabka. Si adag ayuu ula dagaalamay, xilli iyadu ay isku dayayso inay qaniinto mar qura. Markuu albaabka u dhaxeeyay xijinay, mar kale ayay isku dayday inay weerarto, laakiin halkii isaga ay ka qaban lahayd, albaabka ayay qaniyo ku qabatay. Si xoogan ayay iridda alwaaxa qaniyo ugu nustay. Dhammaan ilkaheeda ayaa banaanka yimid. Hideo wuu qalqalay markuu waxaanoo dhan kulansaday, mana fahmi karo waxa haleelay iyaduna waxay si joogto ah ugu cambaareynaysaa in nolosheeda kii burburiya uu yahay. Gudaha ayay u jiidatay iyadoo si arxan la'aan ah uga xadgudbaysay. Mar kale ayay isku dayaysaa inay qaniinto. Markuu dhabarka ka riixay, waxay ku dhacday wax sidii warankii u taagan oo way dhimatay durbaba. Hideo guriga ayuu ka soo baxayaa, wuxuuna u socdaa dhanka xafiiska. Isagoo buundada sii dul maraya ayuu arkayaa haweeney dhiig ka socday gacanteeda, xilli dayax-gacmeedyo ay dushiisa sare marayaan, kuwaasoo ku wajahan dhanka magaalada. Soo gelidiisa xafiiska wuxuu la kulmay saaxiibkiisa shaqada wadaagaan oo TV-ga war ka daawanayay oo dhiig ku yaalay shaarkiisa. Isla waqtigaas booskiisa ayaa soo galaya qolka, wuxuuna u muuqdaa mid amakaagsan. Indhihiisa waxay yihiin kuwo yaab leh. Mindi ayaa suran laabtiisa. Iyadoo ay taasi jirtay ayuu haddana weydiinayaa inay shaqada dhameeyeen. Hideo ninkii ay wada shaqaynayeen ayaa ku dhuftay kubadda kolayga. Wuxuu dilay booskiisa isagoo dhowr jeer iyad u geysanayo. Hideo ninka wuxuu u sheegay inay tahay midaan natiijada fayraska ka dhalato oo noqday mid meel kasta gaaray kuna faafayay si degdeg ah. Wuxuu intaa u raacinayaa in iyagoo kale ay noqonayaan haddii qaniinaan oo ay ka dhigayaan zombie dadka xanuunka qabo, taasoo Hideo xasuusinaysa dagaalkii soo dhexmaray isaga iyo saaxiibtiisa oo markaasi soo qaniintay. Wuxuu hubiyay gacantiisa, laakiin wax nabra kama muuqdaan. Waxa kaliya ay ku yaalay ilkaheeda meeshay ka baxeen haraadigii kaga haray. Iyadoo wax yar kadib ninkii ay wada shaqaynayeen uu bilaabay inuu bedelmo. Indhihiisu waxay bilaabeen inay qayirmaan. Markuu arkay xaaladiisa, Hideo wuxuu garan waayay wuxuu sameeyo iyo sida arrinkan uu uga falceliyo, laakiin saaxiibkiisa wuu ogaa waxa socdo. Markuu dareemay inuu zombie noqonayo oo xanuunka qaaday, wuxuu bilaabay inuu isgowraco. Hideo wuxuu rabay inuu halkaasi ka baxsado, laakiin wuxuu la kulmayaa haweeney ay wada shaqaynayeen oo iyana xanuunka qaaday oo qaab muuqeeda oo dhan uu isbedelay. Xafiiska ayuu orod uga soo baxayaa isagoo wadada ku arkay zombie dhooban meel walba oo midba kan kale goosanaya oo cunayo. Isagoo la yaaban waxa socdo, qaar ayaa wadooyinka hoose si dhuumasho leh uga ordayay. Daqiiqado yar gudahooda, dadku waxay ogaadeen kuwa u eg inay iyagoo kale yihiin. Kuwa ayaa baxsanayay, halka kuwa kale markay kufaan ay noqonayeen ugaarta zombieska ay quudanayaan. Hideo wuxuu u ordayaa isagoo adeegsanaya xawaarihiisa ugu dambeeyo. Si kadiisa wuxuu ku soo dhacay waddo ee dad badan joogeen, kuwaasoo hal dhinac u
ordayay. Gawaarida waxay ahaayeen kuwo isku dhacayay, dhismayaasha magaalada way gubanayeen, dadkuna waxaa dul marayay gawaarida. Hideo wuxuu soo gaaray gaari u dhowaa si uu ugu baxsado. Isla waqtigaasi gabar ayaa u timid, garabka ayay ku dhegtay iyadoo weydiisanaysa caawinaad si uu u badbaadiyo gabadha. Wuxuu Hideo soo saaray qori isagoo qorsheynaya inuu toogto zombieska. Wuxuu xasuustase inuu qoriba haysan, kaliya maskaxdiisa wax ay u sawiraysa inay tahay dhammaan dadkii badbaaday gaariga koreen ayna ku baxeen iyagoo ku wajahan xuduudka. Halkan waxay ka daawanayaan wararka lagu sheegayo gobolada uu xanuunka aadka u saameeyay, iyadoo weli sababta caabuqa keentana aan la ogaanin. Waxayna isweydiinayaan sidaan degdega ah waxa uu ugu faafayo. Intay warka sii dhageysanayeen waxay ogaanayaan in qof gaariga la saaran uu xanuunka qaaday, kaasoo dhiig inuu afka ka keeno bilaabay. Wuxuu weydiisanayaa wadaha gaariga warqadda tiishka, isla markaa darawalka tiishka usoo taagay gacanta ayuu ka qaniinay, wuxuuna weerarayaa kadib Hideo gaariga ayuu ka bixinayaa isagoo isdifaacid ku jira. Hideo waa la jiidanayaa iyadoo jiidaanku uu ka laadlaado lugtiisa. Siday ahaataba Hideo wuu iska fujiyay iyadoo gabadha ay caawinaysay. Kadib markuu haleelay xanuunka wadaha gaariga ayaa shucuurtiisa isbedelaysaa, isagoo u sheegaya in intii uu noolaa uu weligiisa ku xadgudbin sharciga. Wuxuuna bilaabayaa xawaaraha gaariga inuu aad u dheereeyo, isagoo ku dhufanaya gaari walba oo ka hor imaado. Intuu sidaasi sameynayay wuxuu la kulmay shil halis ah wuuna ku dhintay. Kadib marka kuwa badbaaday ay soo naaxeen waxay arkeen shilka inuu sababay wada xiran baahsan. Waxay bilaabeen inay internetka ka raadiyaan wax ku saabsan cudurka, waxayna ogaanayaan inuu bedelayo qaab nololeedka qofka iyo habdhaqankiisaba, iyadoo taasi ay raacsan tahay in dadka uu saameeyay xanuunka ay jeclaan lahaayeen in noloshooda hore ay ku laabtaan. Waxay ku dhagan yihiin habdhaqan soo noqnoqdo oo aan isbedel lahayn. Inta lagu jiray xaaladan xun waxay helayaan iftiin yar oo rajo ah markay ogaadaan caabuqa inuu ku noolaan karin ama lagu daweyn karo meelaha dhaadheer ama buuraha dushooda. Waxay meel fog ka arkeen buur, waxay bilaabeen inay xaggeeda u socdaan. Xoogaa kadib habeenay noqotay, meel ayay waqti ku qaadanayaan caawa. Halkan ayay isku baranayaan iyadoo Hiromi ay nabadgelyo ku dareemayso agjooga Hideo. Subaxa marka la gaaray, Hideo qaniyo calaamadeeda ayuu ka arkayaa qoorta Hiromi, taasoo si dhaqso ah isku bedelaysa madow. Hideo wuu istaagay isagoo qorigiisa soo baxsanaya ayuu ku taagayaa gabadha. Waxay u sheegtay inuu qaniinay wiil yar oo kalkaaliso u ahayd oo ay cirbad duraysay oo xanuunka juudaanka aan qabin. Hideo wuxuu go'aansanayaa inuu toogan gabadha, wuxuuna ku fikirayaa inay reysan doonto markay buurta gaaraan. Wuxuu u ballan qaaday inuun cidlayn doonin, ilaalin doono, uuna badbaadin doono. Waxay labadooda sii wadanayaan safarkooda ku aadan buurta. Hiromi waxay lumisay awoodeeda markay fuulayeen buurta, iyadoo qaylinaysa xilli indhaheeda mid ka mid ah zombie isku bedelay. Hideo cabsi ayuu dareemayaa, uuna ka baxsanayaa meesha. Wuxuu u orday si aan neefsasho lahayn ilaa uu kala kulmay nin uu weydiisanayo caawin, laakiin ninka markuu soo jeestay isna wuxuu ahaa zombie. Wuxuu soo weeraray Hideo isagoo ku dhawaaday inuu dilo. Ayay Hiromi ka soo gaartay oo dishay zombiga iyadoo badbaadinaysa Hideo, tan oo tusisay in Hiromi la dagaalamaysa fayraska gudaheeda ku jiro, iyadoo juudaan aynan noqonin, iyadoo xitaa ay qaaday xanuunka. Weli waxay ku sugan yihiin hawdka, iyadoo Hiromi ay noqotay qofka lagu tiirsan yahay ee lagu kalsoonaan karo. Xoogaa kadib waxay soo gaareen dukaan laga adeegto. Qaybta laga qaato badeecada ee dukaanka waxaa ka muuqatay inuu wajahay weerar ay ku soo qaadeen zombieska. Hideo gudaha ay u kaxeenayaa Hiromi isagoo ku wada gaariga alaabta lagu qaado. Waxay si tartiiba u galeen dukaan oo iibiyaha uu yahay zombie. Isagoo soo gaara xaggooda ayuu weydiinayaa hadday wax kale u baahan yihiin. Intaa kadib wuxuu soo weeraray Hideo, iyadoo markani ay badbaadinayso haweeney kalkaaliso ah oo magaalada ka soo qaxday oo ku sugan xarun goob dalxiis ah, maadaama zombiesku ay soo geli karin meel ammaankeedu adag yahay ay tahay. Markay hoos soo aadaan si ay wax u soo qaataan, waxay ku jahwareeriyaan zombieska qoladan alaab ay tumaan. Hogaamiyahooda Hideo iyo Hiromi wuxuu u ogolaanayaa inay la joogi karaan, sidoo kale wuxuu ku soo dhaweynayaa raashin ay quutaan. Intaa kadib Hideo iyo kooxda waxay yeesheen wada sheekaysi. Markuu hogaamiyaha arkay qorigiisa wuu ku farxay. Hogaamiyaha wuxuu iskugu yeeray kulan ragga oo dhan oo looga hadlayo raashinka inuu dhammaan rabo. Wiilasha dhalinyarada ah waa inay dhismayaasha hoose u dhaadhacaan, halkaasna ka soo qaadaan raashin. Niyad samaantooda si loo ilaaliyana, hogaamiyaha Hideo wuxuu ka codsanayaa qorigiisa, laakiin wuu diidayaa maadaama uu yahay wuxuu u arko hubkiisa qura ee uu jecel yahay. Taas darteeda kooxda waxay dibadda u saaraysaa Hiromi iyagoo isku dayay xitaa inay qaarijiyaan. Hideo wuxuu isku dayaa inuu badbaadiyo, qoriga ayuu ku taagayaa iyadoo laba nin ay gacmaha ka hayeen. Hiromi awoodeeda ayaa soo kacayso, waxayna si la yaab leh u kala firdhinaysaa labadii nin. Inta lagu guda jiray dagaalkaasi waxaa tegay xariga madow ee isheeda, iyadoo markaani
ee qof walba u caddaatay in caabuqa ay qabto. Hogaamiyaha kooxda ayaa falaar ku dhuftay iyana way suuxday. Dhacdadan kadib kooxda waxay ku soo jeesanayaan hogaamiyahooda iyagoo u muujinaya caradooda. Kalkaalisada ayaa hubisay oo sheegtay in Hiromi weli nooshahay. Waxay sidoo kale weydiinaysaa arrinta Hiromi. Hideo wuxuu u sheegay in wadada ay ku soo kulmeen aqoon saasana ay isku lahayn oona inta u keenay xanuun daran ee dareemaysa darteeda. Waxay u sheegtay inay ahayd kalkaaliso isagana inta uu u yimid si uu u badbaadiyo nolosha gabar. Waxay ku dhiirigelisay dadaalka dheer ee uu soo sameeyay. Dhanka kale kooxda Hideo ayay xoog u wateen si uu raashinka ula soo qaado iyadoo kalkaalisadana ay u ballan qaaday inay u ilaalinayso Hiromi. Wiilasha si tartiiba ayay hoos u aadeen ilaa ay hadda lama kulmin wax zombie ah. Markay hoos u diidadegeen oo ay gaareen waxay soo gurayaan raashinka. Hogaamiyaha ayaa ka niyad jabay kooxda wuxuuna rabay inuu ka arguto. Isagoo ku soo jeedinaya zombiska ayuu shiday muusiga sameecado waaweyn lagu xiray iyadoo waqtigaas juudaanta oo dhan ay u soo tafaxayteen xagga uu muusiga ka baxay. Markay hoolka soo gaareen waxay weerarayaan kooxda. Hideo markuu arrintaani arkay wuxuu ku dhuumanayaa konteenar. Waxaa jiray hal zombi oo qaab la yaab leh u dhaqmayay markuu dhageysanayay heesta iyadoo ay muuqatay dhawaaqa heesta markastoo sii maqlo inuu awood ka qaadayay. Si aan la filayn ayuu gudaha ugu boodayaa. Halkaas waxaa ku sugan dad bad qabay oo ku dhuumanayay iyagoo badankooda uu qaadsiiyay xanuunka. Kalkaalisada iyo Hiromi dhinac ayay isku qarinayeen. Qadkana uu ka go'go'ayay markay isku dayayeen inay la xiriiraan wiilasha iyadoo caawimaad ay dalbanayeen. Hideo wuxuu helay talka gacanta ee ka wada xiriirayeen dadkaas wuxuuna maqlayaa codka calaacalka ah ee kalkaalisada. Hideo ayaa u jawaabaya isagoo u sheegaya inuu Hideo yahay uuna nool yahay weli. Waxaa laga rabaa inuu soo gaaro halkaas. Sidoo kale kalkaalisada Hiromi ayay hoos u soo wadaa iyadoo dhabarka ku sido. Wadada ayay kula kulmayaan hogaamiyihii oo zombi noqday kaasoo soo weerarayo. Dhanka kale Hideo zombi ayaa bilaabay inuu qaniino laakiin saacado ugu xirnaa gacanta oo tiro badnaa ayaa ka ilaaliyay inuu dhaawac halis ah gaaro. Kuwa badan oo bad qabay ayuu la kulmayaa. Hideo qorigiisa ayuu mar kale gacanta ku dhigay. Wuxuu arkay zombi kalkaalisada gadaasheeda ka soo socdo wuuna toogtay. Isla waqtigaasi waxay dad kale oo badbaaday iyagana. Dhammaantooda waxay rabaan inay badbaadaan laakiin waxaa ku geedaaran zombi tiro badan mana haystaan qaab ay ku badbaadaan. Wuxuu ku guuleystay inuu toogto intuu awooday oo juudaana Hideo iyadoo dhanka kale badqabayaasha kalena ay iska dhicinayeen zombiyaska xilli juudaantu ku xooganayeen xag walba. Weli iska caabinta badqabayaashu waxay ahayd midaan cabsi ka muuqan. Iyagoo ay laayeen dhammaan zombiyaskii ayay banaanka u soo baxeen. Waxay wateen gaari oo dhanka buurta ku wajahan maadaama ay rabaan inay badbaadiyaan nolosha Hiromi. Halkan ayuu ku egyahay filimka.